بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبرنامجنا ويا أرجع نلاشى. برنامجنا وست حنان ودكسو قدبن دون هذه الهير هلك النقطة تلفزيون كقرنك سوماليلاند. واحد نكوسو أجنا أما بقى نكوسو قادنا. دتك ويا أرجع نلاشى. إيوه دتك أي لكل مان دعوين حسوس تودا كهرو ويا. هذا بقى ما أنت برنامجنا واحد نقول مرتيا تيف عاقل حاج حسين أو حرسي أسكر. waxa loo yaqaanaa xaaji waraaba cadde waa nin waaya araga isla markaasina muddo badan soo taagnaa waxa uu ka mid noqday ciidamadii dagaalkii labaad ee adduunka ka howlgalay ama ka dagaalgalay Burma waxa kale oo uu soo joogay dhacdooyin kale oo aad u tiro badan waxa uu wax ka og yahay in badan oo taariikhda dhowrkii qarni ee ugu dambeysay ee aynu ku sugnayn marka ugu horeysa in xaaji xuseen ku soo dhawo barnaamijka وأنكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاقل واحد نوجا ورنتا بل وقت جاد بربارتي حل جاد كو بربارتي ينرش عادي هره عفوا المهلك تسوق عادتي مركب ورسا. وحن كسوقاتي ميجا برع أيا كسوقاتي نرشيري أنتي عن كعامي إلى شنية تبنشركي إلى لبات تركي جل شرانا هايون كسوق عامي. قرما كوجو رسي مركزي تسوق الشيء مجاله. magaalada waxaan soo galay markii aan 22 joogo ayaan soo galay burco markaan 2 sanadood joogana Hargeysa aan u wareegay markaa ma noo sheegi kartaa maadaama noloshii miyiga aad ku soo barbaartay oo aad xoolaha iyo sida loo dhaqo una taqaanay magaalada wixii aad kala kulantay iyo shaqooyinkii ugu horeeyay aad ka qabatay shaqooyinka aan ka qabtay hudheel iyo macdaarre wax la oran jiray waxa imika dukaamada la yiraahdo oo macdaarre la oran jiray iyo makhaayadahan ka shaqeeyay markaa noloshaydii dambe een Hargeysa imina waxaan ka shaqeeyay iyadana militarigii hore ee dagaalkii koobaad dhacay ee ka soo laga soo wareejiyay oo la oran jiray waxa la oran jiray shaar cadaan bar la oran jiray waa nimankii Jarmalka ka kiciyay Afrika wadimaki ka kiciyay bay ku jireen waxaana la oran jiray kaamil koor nimankaasaan u kariyay soorta raashikii markaa joogay oo aan u kariyay marna aanu ahaa dabaaq ayaanu ahaa wahagaag markaa bal intaynan taasi u gudbin markii magaalo aad soo gashay ee aad shaqada bilowday nolosha miyigu maxay kaga duwaneed tan magaalada maxay ku kala duwaneen magaaladu sidee ahayd maxaa la cuni jiray maxaa la xulan jiray magaalada horta burco markii aan soo galay meesha la yiraahdo burco weyn ee la yiraahdo ina igare laabaha ina igare la yiraahdo oo ahayd sheekha la yiraahdo Sheekh Ibrahim Kaboole oo uu gubay ina Cabdilla Xasan markii la baadi doorayay Ingiriiskii gubay oo wali gubadkii ku sii yaalo ayaa ahayd waxoogay makhaayada inta kale ee imika magaalada wax makhaayada ma lahayn halkaas makhaayada ahayd makhaayada waababay ahayd waababkaas way ka horeysay Hargeysa laba gubay ka weyn tahay taasaanu ay ku noolaayeen kaga shaqeyn jiray waxaana markaa burca laba gub ka weyneed Hargeysa asaaskeeda miya asaaskeeda burca laba gub ka weyn taasay waxaana la cuni jiray hilibka oo bariis ma jirin hilibka iyo garowga ayaa la cuni jiray waxaad gashay ciidamadii Ingiriiska bal looga waran ciidanka sidee loo qori jiray maxaa la idin bari jiray meelaha baa tagteen dagaaladii kugu horeeyay maxay ahayn ciidamada waxa la qori jiray nin u baahan de markaa rag baa ahayn oo ragga geeljiruhu qoran jiray geeljiruhu sida uu ku qoran jiray cayaartu cayaari jiray iyo isagoo rabaysnaa oo geeljiruhu wuu boodi jiray oo boodadu yiqiin orodku yiqiin dhugtanku yiqiin oo dhugtanku waa xaweeya shiishka ayuu yiqiinay taasuu ku qoran jiray marka nala qoro ayaa waxa ahayd in haddaba dalab tababaro waxaana na tababarayay kaamil koorkii hore ee Soomaalida ahaa ee dagaalkii koobaad ka soo baxay nimankaasana tababarayay inteena gudbin dagaalka labaad iyo hawlihiisa bal dagaalkii koobaad maxaad ka xasuusan kartaa dagaalkii koobaad waxaan ka xasuusan karaa waxay ahaayeen nimanka meesha galay East Africa nimankii u diiraraabay noqdeen Soomaalida meesha markaa joogta Kenya ka kiciyeen
saambiyay ka kiciyeen south africa ay ka kiciyeen adigu raggii caynkaa ahaa ilaa iyo wixii ugaadhay ka kiciyeen yaa laga kiciyey markaa waxaa laga kiciyey jarmalkaa laga kiciyey oo intaaba laga wada kiciyey markii uu arkay niman diiran inay yihiin ugaadha wuu dejiyey nairobina wuu dejiyey 3 meelood buu dejiyey markaa oo dadkii halkan ka tagay 3 meelood buu dejiyey waxaad nooga warantaa waayihii iyo noloshii aad kala kulantay ciidamadii kaamil koodhka ee ingiriiska ciidamadii kaamil koodhka markii ay ahayd 42 baa annagana la qoray halkaa waxaa nagu cayaarsiiyey garoonkan imika loo yaqaano masallaha ayaa waxaa nagu cayaarsiin jiray kaamil koodhkii baa annaga nagu cayaarsiin jiray iyo niman ingiriis ah halkaa waxaanu kala kulannay tab wanaagsan oyna bareen tab gooriyahoyna bareen 6 batalyan baa la qoray Soomaaliland laga qoray 2 batalyan oo fas batalyan iyo sigi batalyan la yiraahdo ayaa si gooriya wax loogu baray 2 batalyan mikuriya 500 iyo konton bay ahaayeen kontonku wuxuu isbiibar iyo kuug iyo bay ay ahaayeen kadib labadayda 3 kun iyo dheeraadka ayaa markaa si gooriya naloo tababaray markii nala tababaray waxaa nala geeyey Kenya ayaa nala geeyey magaalada badda ah ee la yiraahdo Mombasa ayaa nala geeyey waxaa naloogu geeyey niman fara badan wax barta baa la yidhi halkaasaa aad wax loogu soo baray oo si goori ah 2 batalyan baanu halkaa ku tagnay ay intaas ka bacdina halkaad uga sii dhaqaaqdeen intaa ka bacdi markii aanu tababaranay ayaa nala geeyey markab naloo keenay markabkaas wuxuu qaaday division waa maxay waa 12 batalyan oo 1500 divisionka ayaa dabadeedna markii nala qaaday qolo walba waanu leenay madow baanu leenay waxaanu leenahay hindi baanu leenay East Africa iyo hindiga markaa annagu haddaanu Soomaaliland nahay midabka yagii wuxuu ka qurux batay dadkii markaa halkaa joogay East Africa ahaa direes gooni aanu lahayn ka gooni carabna naguma tirinin laakiin markaa inagu waxaynu ka tirsanay reer cadmeed oo gacanka cadmeed baa laynagu tirinayay halkaa markii nala soo qaaday ee berbera aanu ag marayno asee berbera naloo soo duwin oo dagaalkii nala geynayo ayaanu u soo galay Jabbaan maraakiibtiisii dhulka ee badda hoostiilay ayaanu markiiba u soo galay way iskaaya tuseen ninka markaa noo korneylka ahaa adduunya halkan la yidhaahdo Soomaaliland 2 nin oo kaliya caddaan ku dhashay 2 nin ku dhashayna midna isbiir baa dhalay oo barsaabka ahaa inta uu ka dhalayna waxay habar jeclo kow imikana way dhaqato basbaasa la yidhaa oo waxay joogtaa London iyadii caruurteedu way gabowday ninka ilanka kale waxa dhalay ila dhulbahanta ah ila dhala bureeyay ila dhala bure oo dhulbahanta ah oo boy u ahaa Smith ayay ahayd taasuna ila bay dhashay labadaasaa ku dhashay kaas waasaa la barbaaray markii dambe la geeyay xagga mooyaane nimanka afka yaga yaqaana ayuu ahaa markaa ninka basbaas dhashay ayaa naga watay korneyl ahaa kolkaasuu diintiidii wakaa Jabbaane diintiidii ku carara sokoriya habuu soo dhigay waanu akhriday quraankii baanu akhriday nimankii waanu weynay halkaasaanu dabeedna ku tagnay dagaalkii Barba ayaa nala geeyey divisionka yagii division leeg baa la eriyey oo la soo jaray nin ugu dagaal xun dadka weeyaan sideenu muusanaabaa tolaale oo kala yidhaahdaa marka ay wax jabiyaan Jabbaanku waa nin dhexo adiga intay ku wada leegii ka ballaaran oo dhexdhexaad biidana kolkii halkaana la geeyey ayuu yidhi 2 batalyan ee Soomaalida ah ee Soomaaliland ayuu baan geynaya dagaalka haddaan ahay korneylkii waa nalaga bedelay kii Ingiriiska dharkii Ingiriiska qorigii Ingiriiska oo afdiile la oran jiray
waxaana la siiyey dhar maraykan baa naloo ayaa markaa gacanta nagu qabtay jarankii maraykanku yidhi anigu intaasubaa kaxaysanaya maxaa markaa laydinku doortay haddaad soomaalidii ahaydeen dagaalka iyaguu yiqiin dagaalka soomaalida ayuu yiqiinay nin ku dhashay buu ahaa meesha siday u dagaalamaan iyo habka yaqaaniin iyo hab aan ciidanka iminka aanu iska hor imanayna aanay aqoonin ayuu yiqiinay kolkii uu meeshii nala geeyey ayaa meesha waxa ka baxa midhaheennii habagteennii waa meel jaaka ah marka aan gaari ma jiro laakiin maxaa lagu wadaa madaafiicda iyo maxaa lagu jiidayaa baqal fardo dabeero ayaa lagu jiidayaa markaa 3 meelood buu naga dhigay qola waa qolada buquulka iyo waxaa wadato waxaa yeesho weeye qolana waa qolada hubka dhexe wadata oo meel dhexe weeye qolana waa qolada hubka yaryar wadata oo meesha ugu horeysa ayaa la dhigaa kolka qoladaasu kacdo ayaa marka lagu soo rido ayaa waxaana loo keenaa raashinka haddaba halkee laga soo qaadayaa weeye waxaa laga soo qaadayaa burco hargeysa iyo berbera ayaa laga soo qaadaa waxaanu cunaa waa subag saliidi ma jirto waa subag iyo timir iyo bahalkii la odhan jiray garowga oo laysku soo qaado iyo hilib labadii buu keenaa waa la bedelay garowgii bariis saruuradaysan oo isku waxaysan oo sanaad waxay ku jiraan bahalihii lagu keeni jiray shaaha ilaa soo gaadheen iyo in kale mooyaane oo bahal yaryara kaasaa lagu soo guraa kolkaasuu hortayada dhigaa inta dagaalamaysu hortooda dhigaa qof walba hortiisuu dhigaa markuu qof walba hortiisa dhigaabaa intii ileegina hormartaa oo dagaalka gashaa inta ay dagaalamayaan baanu anagu cunnaa markaanu wax cunno iyaanu bedelnaa iyana way cunaan dagaalka sidaasaanu ku gallay dabeed markii meeshii nala keenay ayaa la yidhi waa kaa qalcaddaasi 30,000 oo nin ayaa ku jira 30kaa nin 30 sannadood dagaalkoodii haystaan hubkood iyo alaabadoodii ma ku dagaalamaysaan waxaanu nidhi ma adiguna xukuntay mise anagu isxukunnay adigu haddaadna xukunto way layna jabinaya sidii kuwii hore haddaannu annagu isxukunno annagaa jabinayna baawarna waynu helaynaa waanu daaya buuri dhex socda uuna dinku haddii aad tihiin caddaankii waxaana dhex socdaa maraykan ma leh giddiga iyo jarankaasumaana haystaa markaa magaceedu muxuu ahaa halkaa magaalada barma ku taalla qalcaddaasi qalcadda waxaa la yidhaahdaa qalcatulbarba qalcatulbarba ayay yidhaahdaan waa qalcadda ugu weyn ayay ahayd kolkii nala keenay waxaa la dagaalamaa markay 8 tahay subaxnimo ayaa dagaalka la galaa 4 markay tahayna waxaa calanka nabaddaa la taagaayoo calan cada 4 baa nala keenay marka waa la isku nasanayaabaa la leeyahay waa la isku nasanayaabaa la leeyahay 4 galabnimaa lala keenay way ka baxeen xeradii bay tageen annaguna waxba annaan karsan midhahayagii iyo alaabtayadii iyo waxayagii baanu cunnay calqadii ay ku jireen baanu gallay soo noqodkay soo noqdeen 8 habeennimo ayaanu ku dhufannay markiiba waxaanu qabsannay xeradii weynayd kolkaasaa uu yidhi waanu haynaa been baa sheegaysaa buu yidhi helikobtar buu noogu yimi dabeed waanu gallay 3 saacadood baanu u soconay halkaa dabeed barba markaa isgaarsiin baa xilligaa jirto lagu wada hadlayay isgaarsiin afka aan ahayn tan dhegaha taa afka ah taa gacanta ah ayaa jirta taar baa la dirayaa dabeedna taarkii buu diray wuuna soo dul joogsanay annagoo nimankii dhamayna ayuu arkay barbaanu gallay barba markaanu gallay eenu dhaafnay ayuu yidhi ayaa waxaanu ku xignay sayloon waa halka imanka siiralaaga la yidhaahdo sayloon ayaanu ku xigsaynay waa kala xaaj xuseen intaynaan ka gudbin baarma dagaalkeedu intay legbidin ku socdo idinku qaatay maxaa si khasaare idinka soo gaadhay
برما وحو نقو قاتي أفر إيا لبا تساعد كلية خسارنا وحا نقا قالي لحدا نبا وحنا نتا وحنا ناوع به لحدا كابها وحنا نقا بحين واي كبعد واحد وجودبتين سايلون أما سريلانكا سريلانكا دولة دايبك الله يقابل وجودبلي هل كان وانو قبصنا ولا بيرود ولا ميلود تر كشرف بدرو لبا دولكي waa magaalo dushuru waa magaalo kolkaas uu qayliye wuxuu yiri daagaha quruxda badan la u dhawaanina hoosta sul laga bariyay ingiriiska wasaadin leh dikii ingiriiska haya dhawatay ila tudhashay koow biyahana subaa lagu daray ha cabida cuntadooda ha cunina ayuu nugula dhaxmareysanayaa inta sayloon markaanu shan mayl waday ayaa dala jooji markaas anaga la soo qaaday 5 iyo 6 bay noqotay wixii laga baxay iyo wixii dhaawacmayba isla 5 iyo 6 kaasay noqotay baleeg likaasi wuxuu la soo bariyay awliyada oo dhan ee aasan aw barkhad la hadle sheekhan waa inteedan dagaalka tigin hore miyaa dagaalka tigin buu 2 bilood marinayay inta awliyadii siyaarta قال يا مسلم وحي هاي وانو قروي نكا كل كان دبل مركي دبه على سوق عاري وحن رجيي واشنطن ودك امريكا وحي حبلان السيريا حبلها او السيريا يتشدوا لي دبل waxaan dhigay hablaha hadaa dasiirayso rag cilmi la lagu jiray rag cilmi leh ayaa lagu jiray kolka wuxuu yiri hadaa habla dasiirayso qaar muslima ha muslimeed noona beheri waara ka xaysanayda ma jirta buu hadaba ma jecli baan niri wuxuu dabeedna aanu ogaanay inuu dabcay inuu shidin laga reebo sanad buu nagu hayraya hablaha tu uuriyeelataba inuu meel dhigo shidin inuu nagala hadhaabuu doonayay halkaa dabadeed waanu isku seegnay markaasaa nalaga joojiyey hablihii markii dambena waa nala soo qaaday berberaa nala keenay berberaa ninkii doonaya la dhanowna diyaargarow ninkii dhulkiisa doonayowna diyaargarow hubkii baa dabeedna la yidhi qaata hubkii waxaa loo diiday salaadiintii iyo cuqaashi waanu isku dilaynaa baa layidhi in yar baa la baxsatay wakaa waa hagaag waxa aad uga warantaa markaasi intaynan ka gudbin hawlahaasi waxa jirtay Said Maxamed Cabdi Xasan iyo Ingiriisku dagaal badan ayaa dhaxmaray bal waayihii iyo duruufihii halkaasi wixii aad ka ogtahay in bal looga waran markii aan idinlaas ciid luu tagay ayuu dagaalka bilaabay bilowga uu dagaalkii bilaabay waxba kaba xoog roorada dabada waa la eriyay in badan baa ayuu markii dambe wuxuu ku soo noqday reeraheena saasay yeeleen way iska rabeen kolba qolo ku duuli jiray inuu wadaba waa ka taleex waa ka tegey markuu taleex tegey wuu ka soo duuli jiray halkaasaa dabeedna la yidhi haddaba ha la sameeyo hub baadhiin la yidhaah waxa badkeliyaale ah oo hoosta laga furo ayuu keenay hubkaa ninka la yidhaahdo ninkii muuse care ina igare ayuu siiyey intii badnayd intii kalena suldaan diiriyuu siiyey labadaa qolo bahay wax marka hubkaa qaatay ma jirin kolkii hubkaa la qaatay ayuu dabeedna nin waraabe la odhan jiray xaaji jaamac waraabe ayaa la odhan jiray oo markaa dhalashadiisa sheegay reer caynaasho ah oo reer axmed caynaasho ah ayaa oo ina bulaale ayaa la odhan jiray ina bulaale baxnaan baa la odhan jiray ninkaasaa loo dhiibay hubkii iyo raggii ninka jabiyey ninkaasuu ahaa ee ilaahay baawarkii siiyey markii uu jabayna waa ta dabadeedna inuu wadaba dayuuradii ugu horreysay weeyaan dayuuradaha uu yimi uu ka gabyayey dayuuraduu ka gabyayey dayuuradahaasay ahaayeen kuwaasaa dusha ka
ka caawiyey laakiin waa la jabiyey si fiican baana loo jabiyey isagu sanadkii 21 sannadood buu dagaalamayay sanadkii 21 jabniinkiisii u horreeyey iyo erigii buu ahaa kii 22 isagii baaba la dilay sidaasay ahayd taas markaa miyaa la dilay mise wuu fakado u baxsaday wuu dhintay ninki waa la dilay wuu fakaday laakiin waa la qabtay waa la dilay dagaalkii dib haddaynu ugu noqono waxaa jiray dawlado kala duwan oo dhulkan soo galay oo kala dambeeyey maxaad inooga xusi kartaa maadaama iminka deedaadaaduna ay boqol ka weyntay isla markaasina aad noo sheegtay in aabbaha iyo awowga aad taariikh fara badan aad ka dhaxashay oo dhowr boqol oo sannadooda dawladahaasi midba sida inoo haysay mid isagu baacmushtari buu ahaa meesha buu fadhiisan kumuu ahaa markaa kaasu wuxuu ahaa gariigu baacmushtari buu inala lahaa dabeedna ninka meeshaba u bixiyey uduga u bixiyey buntland yidhi dhulka uduga ninka u bixiyey waa isaga ninka beriberi u bixiyey berberana oo ahaa marka xagaagiina waa la kala tegi jiray jilaarkiina waa la isu iman jiray beriberi buu u bixiyey waa afkiisa beriberi haddaad maqasho waa afkiisa ninkaas kaasuu ahaa imisadii bahayd markaa uu soo galay gariigu dhulka muxuu si keeni jiray muxuu si ka qaadan jiray halkan gariigu wuxuu soo galay 1668 waxaanu qaadan jiray saabaha iyo wixii udgoon malabka iyo saabaha iyo hargaha wuu soo magdi jiray baas buu ka soo dhigi jiray hargaha wixii adag raggaa xidhan jiray oo dhuwan baa la odhan jiray wixii jilicsana dumarkaa xidhan jiro waxaa la odhan jiray iyagana qayraan baa la odhan jiray qayraanka way jilicsanay sida baasku iminkaba u kala jilicsan yahay markaa ninkaasu sidaasuu ahaa ninka magacaa inoo bixiyuu ahaa wax eeda inooma yeelan dhulkana buu fadhiisan laakiin baacmushtari buu ahaa markaa wax raadoo ka muuqdaa iminka ma jirto oo lagu xusuusan karo gariigaas oo astaana markaa ma dhulkaanu aad u sii dhexgelin maxaa ugu wacan inaan wax raada laga arag waxaan loogu arag dhulka iyaga inaad soo dhex gasho ma doonayna baacmushtarigaa nala yeelaan iyo dadkiibaa u diiday markaa noolaa ayaa u diiday inuu yimaado ee wuu soo fadhiisan lahaaba laakiin waa loo diiday baacmushtarigaan ku ogol lahay baa layidhi hadda ayaa baacmushtari inala lahaayee kale hindiya baacmushtari bay inala lahay eeraan baacmushtari bay inala lahay ciraaq baacmushtari bay inala lahay yaman baacmushtari bay inala lahay tan iminka dagaalamaysa ee la yidhaahdo isku dhex jirta taasuna baacmushtari bay inala lahay ee la yidhaahdo tan iminka iyadu dagaalamaysa maya bakistaan way inala lahayd oo dee markaa hindiya way isku wada jirteen bay kala baxsaneen nimanka marka dambe go'yaasha inoo keenay bay ahaayeen haa yaman baacmushtari bay inala lahayd oo waaba inoogu xigtay dhul bannaan baa jiray oynu cadan isu mari jiray oo la yidhaahda karin oo ahaa gasiirad ilaa intan waxoogay leegay oo markii dambe ee labada biyayow la isku soo diray badda cad iyo badda cas buuxsantay laakiin aynu mari jiray oo cadan geelaynu geyn jiray oo adhigaynu geyn jiray markaa waa la lugeyn jiray waa halkay ka soo baxday berber shalay baddu haa waa halkay ka soo baxday midka kale halkaa nimanka la yidhaahdo ceerigaabada cayaarta la yidhaah yaman baa cayaarta waa kuwan isku dhow ceerigaabo iyo halkaasi cayaartii bay weli haystaan ceerigaabada sidaas loo cayaaro way cayaaraan yamani waa waxyaabaha iminka aynu ka dhaxalay iyada ka kale waxaa xoolahaa loo geyn jiray laakiin xoolo dhalaya lama qaadi jirin markaaba waa kaa xaaj xuseen waxaad nooga warantaa bal haddaynu dib ugu noqonno ingiriisku sidee buu dhulkeennan uu ku soo galay siduu si dadka loo dhaqmi jiray dhulka wuxuu ku soo galay markaa ay laga xoog roonaaday cismaaniyadii oo tukriga ahayd ayaa dhulkii dabadeedna markii iyagu gaaladii ay isu baxday
ayaa ingiriis yimi markii uu yimi waa taa dabeedna la kala qaatay xadka wataa la yidhaha soo degi doonidii baa dib loogu celiyey 180 mayl yamani inoo jirtay 110 baynu inagu leedahay meelshii wuxuu yidhi 10 waxa weeyaan meel idinka dhaxaysa oo xada oo qoloba shan leedahay 100 baynu inagu leedahay sidaa uu inoogu yimi lurtiisu ma badnayn ta hoose mooyaane ta sare lurta hoosuu lahaa siyaasadda hoose ayuu lahaa laakiin siyaasad wuxuu inoogu badnaa markuu geela inaga laayay ee lagu dilay feedhoole geelii 4 baa laga dilay markaa qisaas maxay ahayd halkiisa ka dhacday halka ay ka dhacday waxay ahayd hawdku geelii ku xareeyay beesha la yiraahdo dadhood iyo beesha la yiraahdo iyana darooriyo dhulkaasuu ku xareeyay dabeed waata ninkii ugu horeeyay markii la dilo feedhoole loo jiray waxaana la inoo soo diri jiray askar la nasirayo ciidamay ahaayeen nin aan ahayd ciidan laynooba soo diri jirin askar bayna xukumi jirtay dhiisaygu ugu horreeyay hargeysa fadhiista kabtabaag baa la odhan jiray inana wajux baynu u bixinay maxaa loogu bixiyey markaa madabacadiisa dabeecad adag buu lahaa wejiguu duubi jiray dabeedna wajux baa loo bixiyey isna kabtabaag baa la odhan jiray nin kabtana buu ahaa waa kaa maxaad ka xasuusantahay kale waxyaabihii ingiriiska yani ugu yaabka badnaa ee aad kala kulanteen intii uu dhulkan joogay waxaa noogu yaab badnaa markii uu yidhi waxbaan idin baraya ee uu culimadiina tiri waxba hana bari maxaadna baraysaa soomaali waxba hana bari taa waanu naqaanaaye qolo annagaabaa afka noo taqaane inta noo hadhaye naga tag kolkii dambe wuu ina cadaadiyey muxuu inagu cadaadiyey wax walbana inagaa diidnay waxbarkii waynu diidnay halkaa iminka BBC-dan iminka Nairobi taala berbera laga dhisay berbera ayaa laga dhisay yaa qaaday qoladii aynu isku darsanay ayaa qaaday oo sidaa ugu baabi'iyey weli 4 dawladood ila soo maray nin fadhiistay iyo nin baacalushtari inala yeeshaba wixii Soomaaliya ila marisay baadaan arag waa hagaag kaas wuxuu ahaa Chief Caaqil Xaaji Xuseen Aw Xirsi Askar waa qaybtii koowaad ee aanu ku wareysanaynay waaye aragnimadiisii muddada dheer ahayd iyada oo muddo 104 sanadood ah oo cumrigiisa Ilaahay uu ku simay wax badanna uu goobjoog u soo ahaa qayb dambe ayaanu idinku xigsin doonaa balse qaybtan hore intaasaan ku soo koobaynaa waxaanu leenahay wassalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh